soo dhawaada saxaabay madaxweynayaasha dowlad deegaanada dalka Ethiopia marka laga reebo deegaanka Tigray maanta waxay iska xadiriyeen magaalada Bahardar tolo maxay ka dooneen shirka BRICS ee toddobaadkan lagu soo gabagabay wadanka Koonfur Afrika Ethiopia waxay fursad u heshay inay ka mid noqoto 6 dal ee ku biiraya hadda maxay tahay faa'iidada Ethiopia ka helayso labada qodob ayaan habeenkan caawa ku eegaynaa warbixinteena daawasho wanaagsan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir page-kana like iyo follow iyo share intaba ku dhufo adigoo mahadsan warbixinteennii hore waa naga ka hadalay in dowladdeegaanka Axmaarada ay doorteen madaxweyne cusub kaasoo lagu magacaabo Aragga Kabade madaxweynaha cusub oo dabcan ay hor yeelan caqabado fara badan ayaa maanta si caleemasaarkiisa iyo shaqagalkiisa loo daafro waxa ka qayb galay madaxweynayaasha dowlad deegaanada dalka marka laga reebo deegaanka Tigray dabcan deegaanka Tigray PP ma maamulo oo waxa maamula TPLF iyo ururada kale ee mucaaradka مثلا عزوم كل لما قرنا لكن قتاج ردا يمامل كيسو قبطاس كمان موقنين مدحويناش لكن دول ديجان هذا كله وكم ذي هاي مدحوينات دول ديجان كصوماليا مدن مصطفى محمد عمر أي قبطاس تجي أسلام كان سعودي رجلية مدحوينا عصب مدحوينه هورنا طبعا الدكتور يلقى الكفلنا نسقوتيه طبعا مدحويناشو قضبك الدون أي مارتي كهالين بهيد المدحويناش هذا waxa kamid ahaa ee goobta caleemasaarka ka hadlay madaxweynaha deegaanka Cafarta awal arba waxa uu sheegay marka in dhibaatada Axmaarada haysata ay tahay dhibaatada Canfartan haysata marka waxa uu yiri dhibaatooyinkaas inaan si wada jiro wax xalinayo loo baahan yahay waxa kale oo kamid ahaa madaxweynaha deegaanka Oromada Shimalis Abdisa waxa uu yiri guusha deegaanka Axmaarada ama guusha shacabka Axmaarada waa guusha Oromada dhibaatada haysata shacabka Axmaaraduna waa dhibaato haysata shacabka Oromada saasoo dabcan u walaalay madaxweynihii horena waa uu mahad celiyay waxa uu sheegay marka in ka deegaan Oromahan ay taageero Hiiliyahooba ay la garab joogaan maartay deegaanka Axmaarada madaxweyne Mustafa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida oo isaguna goobtaas ka hadlay waxa uu sheegay in shacabka inuu ku kalsoon yahay maartay in shacabka Axmaaradu dhibaatada hadda ay ku jiraan ay maartay si wanaagsan oo wadanka tusaale u noqon karta ay uga bixi karaan waxa sheegay in uu ku farxay madaxweyne Mustafa in dhibaatada ka dhacday deegaanka Axmaarada muddo kooban gudaheed ay uga soo kabteen waxa uu sheegay markaa inay ka deegaan Soomaaliyaana ay garab taagayeen madaxweynaha cusub dhanka Sidaama aynu eegno Sidaamana waxa uu sheegay in mas'uuliyiinta cusub ee deegaanka Axmaarada loo soo magacaabay shalay mas'uuliyadda ay qaadeen in loo baahan yahay in aqoonyahanka iyo shacabka deegaanka Axmaaraduba ay caawiyaan mas'uuliyiinta cusub ee xilka cusub loo magacaabay ay ku taageeraan madaxweynayaashu dabcan aad bay maartay dhamaantood uga wada hadleen dhamaan madaxweynayaashu intaas ma ka soo qaadanna waxay u muujiyeen taageero Hiiliyahooba in la garab joogaan niyad wanaagna u muujiyeen munaasabada caleemasaarkana way ka qayb galeen madaxweynihii hore ee deegaanka Axmaarada ayaa isaguna maartay goobtaas ka hadlay isagay kaabineegiisii oo 12 gaadhaya ayaa halkaas maartay lagu macsalaameeyay waxa kale oo isagu hadlay marka madaxweynaha cusub ee deegaanka Axmaarada waxa uu sheegay marka oo uu ku baaqay in hogaaminta cusub lagu garab istaago sidii uga shaqeyn lahaayeen danaha shacabka Axmaarada waxa uu sheegay in hogaaminta cusub ay ka shaqeynayaan sidii dhibaatada hadda jirta looga gudbi lahaa waji cusubna shacabka deegaanka Axmaaradu ay u gudbi lahaayeen waxa uu ku baaqay mar kale in lala shaqeeyo maamulka cusub ee deegaanka Axmaarada isla markaana la joojiyo hadallada nacaybka abuuraya ee meelaha fagaarayaasha laga odhanayo si isku soo dhawaanshaha shacabka iyo maamulada loo sameeyo loogana fogaado kala fogaansho iyo maartay nacayb in la abuuro waqtigan intaas haddii aanu ku dhaafno madaxweynayaasha dowlad deegaanada dalku waxay maanta ay ka yiraahdeen caleemasaarkii deegaanka Axmaarada saan la socono toddobaadkan magaalada wadanka South Africa ama Koonfur Africa waxa ka dhacay shirkii 15aad ee ururka BRICS oo sal la socotaan bay ku midoobeen wadamada Mareykanka ka siyaasadda duwan sida Shiinaha Hindiya Ruushka Brazil
iyo South Africa ayaa waxa lagu soo daray 6 dal oo cusub 6 dal waxa kamid ah wadanka Ethiopia iyo Masar oo Afrika laga soo daray iyo dunida muslimka oo laga soo daray Iran iyo Sultanka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga iyo Argentina ayaa lagu soo daray bahayd marka haddaba Ethiopia maxay tahay faa'iidada ay ka helayso inay ku biirto ururkan BRICS la taliyaha amniga qaranka ee ra'iisul wasaaraha Ridwan Hussein oo warbaahinta dalka la hadlayay waxa uu sheegay in faa'iidada laga helayo ay tahay in fursad labaad loo helo lacagaha qalaad ee hadda ganacsiga adduunka ku socda dollarka la helo waji kale labaad hadda dollar un baa haysta adduunka balse la helo waji kale labaad waxa uu kale sheegay in la heli doono kobac dhaqaale mid maalgelineed iyo maartay madax banaanida dhanka siyaasadda tusaale ahaan haddii Ethiopia dalbato deyn ay ka dalbato World Bank ama IMF ama deeq bay dalbato waxa jira intaas oo shuruudood oo lagu xidho waliba sanooyinka ugu dambeeyay shuruudaha ayaa lagu xidhay wadanka taas waxay keentay in deymihii iyo deeqii hadda ka hor la heli jiraan la helin sabab la xiriira shuruudaha ay dhigayaan iyo waliba faragelinta gudaha wadanka lagu hayo waxa sheegay marka taasi in laga bixi doono waxa kale oo sheegay in wadamada xubnaha ka ah ururka BRICS Ethiopia la yeelan doonto waliba xiriir wanaagsan taasina ay ka caawin doonto in la helo ilo dhaqaale iyo ilo maaliyadeed oo hor leh waxa uu sheegay in Ethiopia tani ay ka saacid doonto in fagaarayaasha caalamkana maartay ay markale saameynta ay ku lahayd kor u kici doonto waxyaabaha uu sheegay in Ethiopia lagu xushay waxa uu sheegay in Ethiopia ay ka mid tahay wadamadii aasaasay League of Nations-ka African Union United Nations-ka ay qayb weyn ku lahayd maartay asaaskoodii taasina iyo waliba galaalgalkii uu sameeyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed muddadii shirku socday wada hadaladii goonida ahaa ee la yeeshay madaxweynaha wadanka China ra'iisul wasaaraha Hindiya madaxweynaha Koonfur Afrika Brazil iyo waliba madaxweynaha wadanka Ruushka oo hore u kulmeen iyo waliba wasiirkiisa arrimaha dibadda Sergey Lavrov oo ay marka wadanka Koonfur Afrika ku kulmeen kuwaas oo dhamaantood ra'iisul wasaaruhu ku qanciyay in Ethiopia ay tahay wadan u mudan in maartay lagu soo daro waqti xaadirkan ururka BRICS taasna wadanka Ethiopia siiba deegaanada iyo si guudba maalmahan aad ayaa looga hadlayaa bal waynu eegi doonaa waxa wadankeena uga soo kordha ku biiritaanka BRICS tani ay kulanti dambe nabadgelyo